السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامجك ديرجل عافمات وأنا جوا دكتور يوسف. فيديوغن وحن كجهد ليا فيديوغن كوما وحن كجهد ليا صدح شيء أو قفكو هديو داديسو لحنا أما دوري لحنا يقعدو وكده داليو سيو ويلاليو عافمات كتشركيسة أما هدي وفاملي جاجا أي كمديهين qoftaadiisu 60 ama dhowr iyo 60 tahay u gudbi message-kan si uga faa'iideysto soo ilaaliyo caafimaadka iyo jirkiisa. Number 1 waa inuu qofku qaataa protein ku filan. had iyo jeer waxaan isticmaalaa cuntooyin carbohydrate ku fara badan yahay oo kale, laakiin waxa laasim ah in aad maalin kasta qaadato بروتين واي jirkeena ayaa u baahan proteinka. waxaan aad qaadan kartaa ilaa tusaale ahaan oo kale 0.8 ilaa 1 gram ahaan baad qaadan kartaa inta uu weigtkaagu yahay halkii kiiloba. tusaale ahaan oo kale haddii aad tahay 70 kiilo ugu yaraan waa inaad qaadataa ilaa 70 ilaa 60 gram oo kiilo oo ah gram oo protein ah maalintii. بروتينadaasi waxa laga helaa waxyaabo badan baa laga helaa. waxa laga helaa cuntooyinka hilibka baa laga helaa, waxyaabaha midhaha oo kale ayaa laga helaa. marka aad waxa u muhiim ah inuu qofku ku dadaalo inuu maalintii qayb kamida cuntadiisu ay ku jirto protein. si yar oo fudud uga heli karaa proteinka oo kunta ayuu uga heli karaa. waxa oo subaxdii oo kala qaadan karo ama maalintii oo kala u qaadan karo, sida waxyaabaha beanisto ama waxyaabaha midhaha oo kale. tusaale ahaan oo kale hadda isku soo wada qaadno dhamaantood waxa laga heli karaa protein ayaa laga heli karaa. haddii aad qofku u leeyahay tusaale ahaan oo kale xanuuno kale uu la nool yahay, kaliya xanuuno la nool yahay, mar walba waxa muhiim ah inaad la tashato dhakhtarkaaga, inaad la tashato cunto protein intee leeg ayaad u baahan tahay inaad qaadato. waayo protein fara badan aad qaataa marmarka qaarkood jirkaaga ayuu waxyeeleyn karaa, laakiin waxa muhiim ah inaad ku dadaasho inuu qofku maalintii protein ka qaato qayb kamida cuntadiisa ay qaadato. numberka labaad ee aad sameynaysaa waxa weeye waa in aad ku dartaa noloshaada qaybka jimicsi ah. waayo haddii jir qofku markuu gaboobo da uu noqdo waxa laga yaabaa inuu dhaho waxa laga yaabaa inuu leeyahay dhabar xanuun oo kale, roog xanuun oo kale, iska xanuun jirka oo iska xanuuna marka da timaado. marka waxa laga yaabaa in aanu wax badan sameyn karin oo koro oo yiraahdo qofkii uu ka dhigto uu yiraahdo waxa ma sameyn karo jimicsi noocaas ma sameyn karo. laakiin waxa aad iyo aad muhiim u ah in aad jimicsi sameyso ama aad soo sameyso oo kale socod soo sameyso oo kale ugu yaraan maalintii inaad ka dhigato qayb kamid ah routiinka maalinimadaada aad ku darsato inaad 30 daqiiqo oo aad sameyso ama soo socoto kale. waxa jira ayaguna jimicsiyo u fiican, tusaale ahaan oo kale ruuganka oo kale u fiican, dhabar xanuunka oo kale u fiican oo qofku muruqyadiisa dhabarka ama kuwa adimada oo kale oo ay ka caawinayso in qofkii dhabarkiisii ama muruqyadii dhabarka ama muruqyadii adimada ama ruuga haday tahay ay noqdaan kuwo adag oo muruqyadina ay noqdaan qaar isku dheelitiran ay noqdaan. haddii markasta oo muruqyadaadu dheelitiran la'aantu ay hoos u dhacdo waxa laga yaabaa in ay laabatadii aad ka dareento xanuun aad ka dareento ama isku toosnaantii iyo balansiga uu ka lumo. marka waxa aad iyo aad muhiim u ah inuu qofku ku dadaalo jimicsi maalin kasta uu ku dadaalo. waxay doonto ha noqoto ama socod ha noqoto ama jimicsi uu guriga sameeyahay ha noqoto ama baaskeesha guryaha la dhigto oo kale oo qofku uu kaxaynayo oo guriga dhexdiisa uu ku kaxaynayo waxyaabaha baaskeesha guryaha la dhigto oo kale. taasina waxay u fiican tahay lugaha iyo muruqyada ay u fiican tahay, aad iyo aad jirka dhan u fiican tahay. ka saddexaadna waxa weeye qofku in uu qaato had iyo jeer vitamino supplement ahaan oo kale oo jirkeenu uu baahan yahay vitaminada. had iyo jeer qofku vitaminada uu baahan yahay. dadku markay weynaadaan oo kale waxa laga yaabaa in lafihii cufkii lafaha ay hoos u dhacaan mar alaale ay hoos u dhacaan. haddii ay qofka laftaada hoos u dhacdana waxaad halis ugu jirtaa
in uu yimaado jabitaan qayb ka mid a lafahaagu ay si ama gacanta ama miskahoo kale si yaroo basiid ah ay ku laftii kuu jabto. marka waxaa muhiim ah inuu tusaale ahaan oo kale qaato qofku is cuno fruits badan cuno, waxyaabaha midhaha oo kale cuno, qudaar fara badan cuno si uu uga helo fitamiinada. haddii aanu qudaar fara badan helaynin inuu qaato iyagoo supplement ahaan oo kale, tusaale ahaan oo kale fitamiinka cadceed oo kale, calcium oo kale, waxa aad fitamiino fara badan multivitaminiska oo kale aad iyo aad bay muhiim u yihiin, waayo jirkeena ayaa u baahan. marka fiidiyogan kooban intaas ayaan kusoo koobaya, waana inoo iyo kulanti dambe. aad iyo aad baan idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.